madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa qasriga madaxtooyada ku-meeldeerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ka qaabili wafduusa hogaamiyay boqor cusmaan maxamuud burmadow oo uu sii wafdijay geekiyo hadeeren magaalada baydhabo ee gobolka baay kulanka madaxweynaha iyo wafdiga boqor burmadow dhexmaray maysaas oo kaleed ku qayb galay wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha maamulka gobolka baay odayaal dhaqanka meelo boqorka wafdijay iyo qayb ku hayeen xildhibaana siyaasiyiin suldaaniyo walgorata ku jeeda maamulka Somaliland arintanka weyn wafdiga boqor burmadow hogaamiyay handeeri magaalada baydhabo ee gobolka baaya ee intii lagu wada hadala musaafiriintii maamulka Somaliland bilo ku horiyo ka suubiyeen dadkii ku jeeday deegaanada koonfur galbeed ee ka noolay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo waliba sidii xalwaar loo ku diiray lahaayay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo wafdigiisa hogaamiyay boqor burmadow aan ku mahadnaqay booqashadii uu ka diiray magaalada baydhabo ee gobolka baay maynu soo xusay antii dowlad goboleedka koonfur galbeed diyaarinta walwalba oo la ka xal mariyo bulshadii la ku musaafiri magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maxamed abuukar cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kulanka qayb ku hay markii dhamaaday warbaahinta dowladda meenku warbiyay walyaabo kulanka diiradda la ka saaray الرحمن الرحيم ويبقى ميل راي مقالة بيدبع عاصمة كوميل جارك دولة جولات كونفر قلبت سومالي هديري وفدي أسوه جاميو بقر برمدو وميل راي نسكجران صلاح الدين نبضونا سياسيين يو أسوه جاميو وفدي قاسوا يدن بالليل ميل كلهم منا مدحونا دولة جولات كونفر قلبت سومالي أي ميل راي ويكل كلهم منا حفيز جي سعودال جي وفدي قاسوا ميل راي وجديد سايتي sida la socotaan mudada lagu rooga muddo lambilood way dhibaato eedan xoog badan lan deersii dadka reer koonfur galbeed oo horay meel raayeen ka shaqaysadaan ka noolay degmada Laascaanood ee Somaliland oo maamulka Somaliland xaqiiqdii dhibaato badan hanjaysidii xaqiiqdii meel raayay way waxa dadkaas oo muddadaas ilaa hataba meelaha in badan oo kumid ah dadka ganacsatada dhibaatada wali la handeersii hantidii kuma qonta qaar badan kumid ah wali ilaa hadda heladiyo iyo nisana markan boqorka socdaal shay way ka aadanayay inuu Somaliland raay ka booqdo magaalada baydhabo kooya maamulkii dowladda koonfur galbeedna isla kulama xaqiiqdii waan meel raay insha Allah taala iyo maalmaha socda kulamo iyo wada hadal ku sameey doon arintaas iyo si waxyaabaha la san la haliilay madaxweynaha way ka dhawaayay meel raay si diiran reer koonfur galbeed dhawaada deegaan shona meel raay idlaan ka dhawaay doona may rajay doona insha Allah taala maadaama dadka shacabka reer Somaliland dadka dhibaatadaas jeesideen hayn oo dadka dhibaatadaas jeesideen dad maamul ee dawladda laakiin dadka shacabka oo ka horeey boqorka iyo dadka ganacsatada iyo salaadiintii siyaasiyiinta reer Somaliland ayona muujiyaayaan animay la raay arintaas eedan ku hunyin dadkaas shacabka ee dhibaatada la deersideen xaqiiqdii oo eedan ku tacsiiriyaan gacan ku jeesida doona xaqiiqdii dadkaas bulshadaas ganacsatada nooc walba iska jirta la dhibaataysadii xoolasho iyo hantidii dibanka hel lahaayeen maadaama dad horeeyaan shaqaysiday meelana dad xirfadleyga shaqaysiday meel raay haayeen yoona ka shacab ahaan iyo ka salaadiin iyo ka meel raay dhaqan ahaan iyo arintaas eedan ku hunyin meel raay koonfur galbeed aan xaqiiqdii eedan ka faraxsana waan meel raay wala ka dhawaay insha Allah taala mayna rajay doona insha Allah xiriirka iyo wada shaqaynta dadka bulshada ku dhaxayta aan inaga doonto timar walba jar doonto oo saameyn ka wada doona go'aan qaldan oo dad oo maamulka Somaliland qaaday ani marnan saameey doona shacabka reer Soomaaliyeed oo ka nool meel raay deegaanadaas shacabka reer koonfur galbeed oo meel raay anseedi xaqiiqdii nolol isha qameel anseedi ani marna dhatiyo meel wal maamulka sameey dhibaato ku sameey doona wada shaqeey doona si qalbi furan ilaa furan lahan gubooj lahan dhawaay waan ka sii roog doona hadii ilaahay raali ka nagad maalmaha socdan kulamo meel gaal doona mesela tusu doona dadkii oo meel isla dhibaatay oo shaqaysadaha iyo deegaanadii dibandegi nolol sameysadaha maadaama dad hortaba xirfadlayaal shaqaysadaha haddana meel raay nolol ka shaqaysan doona markan iidan waasni madaxweynaha nidaam dhawaay insha Allah taala may rajay doona isbedelkaasi wada shaqayntaasna inay tusaalan nagad doona ana dhibaatooyin kala badan la jeeysi doona kooyowka magaalada baydhabo ee gobolka baay boqor burmadow iyo ka beega maasa dhawaan markii uu warbaahinta aan sheegay antii uu sii wafduus hogaamiyo iyo diiradooda magaalada baydhabo meelaas oo iyo seedo doonaan raali gelin iyo ku bii doonaan sidii maamulka Somaliland aan la dhagami shacabka ku jeeday deegaanada koonfur galbeed Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed madaxtooyada